carwada dalxiis waa carwo iminka laga hirgeliyay degmada Ceelbe gobolka Sanaag waxaana xusaysaa sanad guuradeedii koowaad waxaana bulshada ku nool degmada Ceelbe nawaaxigeeda ugu bishaareynaysaa inay qiimo dhimis weyn u sameeyeen qiimo dhimistaasoo gaaraysa 40% inay bulshada qiimihii ay ka dhimeen ay hore uga siin jireen waxaana qiimo dhimistaas bilaami doontaa bisha labaad kowdeeda waxaana ku agtahay ilaa bisha labaad 20keeda mulkiilayaasha ayaa waxay ugu bishaaranayaan bulshada ku nool magaalada Ceelbe nawaaxigeeda inay ka faa'iideystaan qiimo dhimistaasi waa kan Maxamed Maxamuud Saciid Cabdulle oo marka kubad oo ka warbixinaya sida markaas ay qiimo dhimista bulshada ay ugu sameeyeen Axmed waa sax weeye carwada dalxiis oo ku taala degmada Ceelbe waxay furnayd muddo sanadkii ayaa noo dhamaaday hadeer bisha 25keedii ayuu ku buuxay marka alxamdulillah rabbil caalamiin حويان دي كل يدك وحيو أركان مهرد سوق في عن أو مجالات وبحنيد أو كسر كرناي سنة بدأ سنة كان سفيع بنا رجع ديجناي وحويان وأنا وحويان وآدي أدبا أي دتكو وبحناي وأنا سوري ما شاء الله أنا وأنا الحمد لله رب العالمين سنة بدأ سنة كانوا عن شغلة مهرد أودني وحويان وحبضن أيدتكو وبحناي بانوك أن كلا كل ما أو أن وناجه مشرت dadku meheradu customer fiican oo badan bay leedahay hadirto oo ku xiran oo si toos ah ugu xiran maalinta ka dambeysana customerkeedu iyo macaamiisheedu way soo siyaadaan oo way xawayaan way si fiicanaysaa maadaama ay tahay meherad balaaran oo xawayaan adeegyo badan oo kala nooc ay dadku ka helayaan xawayaan waa meherad mar walba ay wanaagsan oo dadku sameynayso korukac marka waa sidaas weeye anaguna waxaan u sameeynaa dadka barnaamijyo sanadkii mar aanu go'aan aanu sameeynay insha Allah waan isla qaadanay inaanu sanad walba markii ay meheradu sanad ay joogtaba bacda xisaab xirkeeda in macaamiisha loo sameeyo qiimo dhimis shaygiiba boqolkiiba konton la sameeyo qiimo dhimis ah qiimo aad u macquul ah oo shayga magaranaysa aad iyo aad qiimo dhimis ah macquul taasoo muddo xadidan ilaa bil ilaa 15 casho oo kale taqriiban soconaysa oo aan macaamiisha ku soo dhaweynayno baan sameeynaa carwada ugu horeysay madaba mise ku dhawaaqdeen aad ku dhawaaqdeen inaad qiimo dhimis u sameynaysaa bulshadina bal ka waran marka sidee ay u soo dhaweeyeen bulshada qiimo dhimistan waxa weeyaan dadku waxay u arkaan fikir wanaagsan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meediyaha dadka magaalada Ceelbe degmada ku nool in ay dadku la socdaan macaamiishii aan ku wargelino in ay qiimo dhimis ka bilaabanaysa bisha labaad kooda ka bilaabanaysa ilaa bisha labaad 20keeda soconaysa in dadku ay la socdaan oo ay ku soo tala galaan carwada shay walba oo waxa weeyaan lacagtii shaygii laga siin jiray $10 laga siin jiray laga siinayo $7 shaygii laga siin jiray $20 laga siinayo $15 shaygii laga siin jiray $5 laga siinayo $3 shaygii laga siin jiray $30 laga siinayo $50 ay saasoo kale dadku la socdaan waxa weeyaan oo qiimo dhimista macquulka ay dadku ay macaamiisha ay kaga faa'iideystaan muddada bisha ah aan ku wargelinaa insha Allah taala uga faa'iideysanaya ugu dambeyntii marka bulshadu sabab ay aragtay inuu farxad galeysay qiimo dhimistan aad u sameyseen boqolkiiba 50 aad iyo aad bay u soo dhaweynayeen 25kii bisha bay sanadku ku buuxay 25kii baan anaguna dadka caadi ahaan ugu sheegnay wayna ka faa'iideysanayeen oo dadku aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen waana qiimo waana ku farxeen waana ku adeeganayeen dadku si xawli bay u adeeganayeen macquul mid kamida macaamiisha carwada dalxiis oo ka adeeganaya carwadaasi ayaa ku faraxsanaa si ay markaasi bulshada carwada dalxiis ay qiimo dhimista ugu sameysay oo ka dhintay 40% qiimo dhimistaasi wuxuuna ugu baaqay inta qiimo dhimistu ay socoto inay ka faa'iideystaan bulshada ku nool magaalada Ceelbe kaalin firfircoon ka qaatay xagga horumarka bulshada ee dhanka ganacsiga oo carwo runtii alaab tayo leh oo qiimo macquul ah macaamiisha aan eriyay ay kula macaamiisha anigu waxa kamid ahay macaamiisha carwada tan kamid ahay sababta jidid hada waa ka adeeganaya qiimo dhimis bay noo sameysay munaasabada ugu dabaaldegayso sanad guureedka soo gatay furitaankeedii waxaan ku mahadsanyahay insha Allah ay sameeyeen waan ku faraxsanahay qiimo dhimista ay sameeyeen waan ka faa'iideysan doonaa insha Allah bulshaduna waa inay ka faa'iideysataa wixii jooga goobta marka bal ka waran adiga maanta waa ka adeegatay xilleedii hore qiimihii laga siin jiray
alaabta kala duwan sida ciidadka oo kale aynu soo marnay shoobanada 40 ka sacwad ka qaadan jirtay waan ku arki jiray bal ka waran maanta qiimaha alaabtan laga siiyay iyo qiimihii hore intee isu jiraan ma sha Allah fadlan weyn buu dhaxaya oo wax aad ka dareemi kartid qiimo dhimista qof jooga oo baa garan kara oo ka adeegan jiray hadda ka hor farqiga qiimihiina la kasi jiray waqtigii hore iyo hadda maanta qiimo dhimista tan aad buu kala duwantay farqiga u dhaxaya weyn marka maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool degmada Ceelba gobolka Sanaag warka faa'iideystaan waxa qiimo dhimista mudada sameysay carwo dalxiis ee idin sameysay ka faa'iideyso waan baan leeyahay dalxiis waa carwadii ugu horeysay ee qiimo dhimis u sameeysa bulshada ku nool magaalada Ceelba ee gobolka Sanaag iyadoo maantana xusaysa sanad guuradeedii koowaad ee markaas la aasaasay carwadaasi dalxiis haddaba mulkiilayaasha ayaa ugu baaqaya bulshada ku nool magaalada Ceelba nawaaxigeeda in ay ka faa'iideystaan qiimo dhimistaasi waxaana kala xidhiidhi kartaa lambarada imika shaashada kaaga muuqda waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinkan caalamiga Somali News TV degmada Ceelba ee gobolka Sanaag